إلا أن dumarku waa deeq daayimunasiiyo waa damal harweylna waa daryeelka nololeed duruuftiya dhibaatada diihaalka waayahay deer nooga yihiin oo dabiibkeena weeyaan allow dumarka noo daa dugsi weeye diirana allow dumarka noo daa waa deeqda nolosha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada bahda Abraar Media. Maanta waxaan idin wadnaa barnaamijka nooga barateen mid ka dugan. Haddaba barbarkayga waxa fadhiya wiil yar oo dhalinyaro ah oo abwaan ah. Abwaan, soo dhawow. Walaal waan dhawahay baaqay aad baad mahadsan tahay. Marka hore bal anaga iyo daawadayaasha iskaya bar. Walaal waxa weeyaan kooban. Anigu walaal waxa la yiraahdaa abwaan Khalid Baasha Waare. Waxaan ahay nin reer Hargeysa ku barbaaray deemakana Hargeysa jooga hal abuurana deemakana iska bilawa. Waxa jira maansooyin badan oo samaysay. Aad iyo aad. Goormaad ogaatay inaad hal abuur leedahay? Walaal waxaan ogaaday 2013. 2013 ayaan ogaaday inaan wax samayn karo. Markaas ay gooreysay. 13 baad curisay. Tumay hadmaansid ugu horeysay waqtigaas curisay. Walaal gabay buuha inkastoo nin badan ka xusuusan. Laakiin se gabay buuha. Guurka. Waxa jira maansooyin badan oo aad curisay. Si fiican. Bal aban ugu horeeyay aad u tirisay hablaha midmadow. Ma la oran karaa waad u kala eexatay hablihii? Walaal waxa weeyaan hibaaqay horta waxa jirta markii hore aniga bay sirida arrinka waxba kaaga soo noqon doona ma garanaysa. Marka anigu waxa midun bay geysay waxa ay geysay anigoo isla hablaha midmadow dhiirigeli maadaama maanta deemaka wixii ay teknoolajiyad noqotay waxa weeyaan ay siri bal iyagu siday dhiirigelin u helaan bal hablaheena midmadow maadaama ay madowga Soomaaliya Afrikaan hayoon aan ka soo jeedno bal niyo dhiirigeli baan siri marka mar dambe aan siri niyo hadana hablaha cadcada laftigoodu iyaguna bilay halkaas ay cuqdad kaaga qaadaano waxaan yiri warniyo anu markaste waxaan dhiirigelinayo naturalka inanta caade sideeda ahna waan soo dhaweynaynaa oo ma diidanin inanta madow waxa weeyaan madowgeeda u dhalatayna iyadana waan dhiirigelinaa markaanu markaste waxaan uga socdeeyun in naturalka iyo qofku sidoo u dhashay waxa weeyaan lahaado waxaan yiri hadii aad adigu habli midmadoowaad taageertay hal abuur badan oo kale ka dambeeyana habla cadcad taageeraan way furantay. Marka adiga ma la oran karaa waxaad u eexatay hablihii midmadooba si qorshaha ma kuugu jirtaa inaad iyagana u tiriso hablaha kale? Iyaga laftigoodana waan u tirinaa laakiin se waxaan u tirinaa iyagoo ah natural oo cadaankii aynu ku dhalanay laakiin cadaan samaysa aan ahayn adigu markaste waxa samayska uma diidanahay laakiin se wixii natural ayaan ogolnahay. Waa hagaag maansada aad hablaha u tirisay hablaha midmadow hablaha midmadow war haddii aynu ku yara noqono in yar iyadana walibana waa gabay weeyaan horta hibaaqi waan ka yari laawey maansadu waxay ku timi ninkan weersama la yidhaahdaa badanka yidhaahda markuu qofku abwaanka ma hal abuurka wax la weydiinayo nin qisadu siday ahayd u sheeg marka dad baa iyadoo qiso beena ama iska malaawaasha oo yidhaahda waxaasay ahayd ama saaxiibkayba ku dhacday ama walaalkayba ku dhacday marka anigu taa waaban ka cudur daartay aniga horta maansadani waxay u dhacday maalin maalmaha ka mid ah waxaan joognay studio radio Hargeysa marka waxa weeyaan inaan waxa weeyaan aan walaalanahay oo la yiraahdo waxa weeyaan Sucaad Xaga oo iyaduna suxufiyiinta radio Hargeysa ayaadu maalinta oo aan isku cusbayn ayaa la iska baray anigoo xafiiska fadhiya kan lagu ninkani waa nin abwaana si fiican bay soo dhaweysay adoo inantii Sucaad markay waxoogaa su'aalo yar weydiisay ayuu ugu tiri waa nin abwaan wixii hore tirisay ka bax bal ka waran niyo hablihii midmadow maasadoodii baa lagaaga fadhiya markaasaan ku yiri walaal waayahay waan samaynayaa markaas sababtaas ay kadiska ahaantay gaga dhigtay inantaas ayaan keentay inaan tixdaas aan qoro
wahaga markaa waxaan idhi hablaha madmadoowi dumarka way ugu horeeyaane hodantii cilmiba caashaqay midab la haystaane heemaal qurxooniyo waxay leeyihiin muuq hareeriyaa huga ay xidhaan bay xaraga kaga horeeyaane halkay soo istaagaan kuwa cadi way kaba huleelaane marka dahab la helo maarta waa la iska hiifaaye hawrkar iyo fariidnimo iyana laguma hergaadho qaar baa hareer mara runtee anuu ma hagaaje ma u heesay hablaha madmadow waa heega muuqdheere afartaas waa hooda ay leeyihiin hiil kalaan baanayoo hubsiimana ku daray gabayga kalayeelana yara haaje hami buuxa hiigsi meelmara iyo hadaf la dhowraayo howlaha hadeer lagu jiriyo kuwa haatan noo maqanba iyagaa noo hagaajoo dhabtii heegan ugu jiree waa hibe ilaahay baxsho haybad ugu deeqiya hal iyo labana kuma soo koobi karo qiimaha hirayee ninkii gabadh inuu hoy la galee hoysto jecelow hore u guurso ha kuu dhalaan hibiyahana dafra weyne waxba lagama qaban karo laakiin halkaasi ee xashaa ku jirto anaguna waxaanu leenahay taayadii hala soo goglo may horta anigu gebigayguba waxaan ka samaysanahay waxaan ka hadlayo waxa inta ugu badan aan sugaanteeda ka hadlayo waa dumarkan anugu xagga dumarkan ay waxa weeyaan inaan hablo badan la dhashay horta xagga dumarka ayaan anu naxariis ahaan u hayaayo ama mid cad ha ahaato mid madow ha ahaatee inan Soomaaliyeed mid kasta waxa weeyaan ammaanteeda waan siinana allah ka barmay aadiyaad waxaa jirta maansa aad u samaysay dadka jacaylku saameeyey adiga jacayl ma kugu dhacay aniga dee waayo qof aan jacayl ku dhicin baa jiraba qof kastoo dhinac ka soo maray jacaylka marka sameeynaysa say ku saameysay adiga Khalid ahaan wallahi walaal maansadan horta waxa weeyaan aniga qisadeyda ay ku dhacday iskamaan samayn laakiin se waxaan ka sameynayay waxa weeyaan waxaan kasoo bilaaway dadkii jacaylku saameeyey oo siday stageska u kala lahaayeen maan u kala horreysiyey oo dee aabbaha jacaylka siday Soomaaliya ay iskugu waafaqsantay oo cilmi boodhari magarat cilmi boodharina waxaan ku xigsiiyey nin kaloo la yidhaahdo Sulub Cumar oo isaguna abwaana oo waxa weeyaan jacaylka u geeriyooday sidaasaan u soo waday dee way badan yihiin waa abwaano badan fanaaniin baa macaa ku jirta Cumar Dhuulaa ku jira Khadra Daahir Cigaa ku jirta Digfeer baa ku jira adigu abwaan waa dadkii jacaylku saameeyey oo dhammaan ayaan ku soo doono markaa inta ugu dambaysa waxaan idhi sidaan ahay baa kasii daran markaa anigii anaa xaaladda maanta kasii daran baaban leeyahay dadkaas oo dhanba bal maansada jacaylka in yar naga xasuusi waxay odhanaysaa sidii boodhari buu gayaan ka samroo sidii sulubo jirhkiisu salmoo sidii huriyo sursuur galayo sidii sangubu sarbeebtriya sidii bide jacayl u samroo sidii cagafan calaa cadilsida sidii qaysbaan talada sahwiyo hadraawi sidiisa laysaaq sidii kaariyo u sooman yaho sidii qowdhanbu u soo silanyo sidii saxardiid buu sallada u galo sidii sugullaan jacayl u sabaa sidii digfeerbu soortii u noco sidii qarshe naftaan sasabaa sidii weerar maansada u sugo sidii Xuseen u faarax u saldhigayo sidii gadhlana u saxansaday sidii barqad cas sameeyay tixo sidii khadradii jacaylku sugnaa sidii dhuuliye safkii waa bari sidaan ahay baa kasii daran maanta baana kasii daran ahay baa qabaxaas oo dhan way ma loo oran karaa markaa Khalid jacayl baa haya waqti xaadirkan inuu ku jirno dee waayo qofkaan jacaylku ku jirin dee waxaan aaminsanahay qalbiyanba dee uma dhamaystirnaba jacaylku noloshu ka mid yahay soo ma jacaylku lacag la-aan ma sii noolan karaa baad is leedahay Khalid ahaan lacag kulley lacagtu dee nolosha lagama maarmo oo dee waxa weeyaan wax lacag la-aan socon karaaba ma jirtaba wax kastaaba dee lacag waa u baahan yihiin laakiinse dee iyadoo marmar iyadoo lacagta laga maarmi karayo dee lacagti horta in la wada waayuunbaa xun laakiinse haba yaraatabe waa in dee wuxuun dee qofki waxuu isku fillaysiin karaayo dee wax uu isku laakiinse in taxadka ay noqoto dee taasaan suuragal lahayn maxaad jacaylka ka aaminsan tahay markaa wallaahi jacaylka waxaan ka aaminsanahay dee wax yaroo wanaagsan way Khalid markuu yaraa nooc muu ahaa kumuu ahaa wallaahi walaal waxa weeyaan dee anigu markaa yaraa horta waqtigii
ma intii waxa weeyaan waxa weeyaan aan joognay qurbaha sacuudiga qodxaa leh mise intaan magaalada joognay way intii aan miyiga joogay waxay ahayd adigu 5 jir baan kaga imi way 5 jir markaan kaga imi dee intii kale 5 jir ilaa iyo intii oon dee imika nin weyn ahayna soddoneeye ahayna waxaan kusoo gaadhoon magaalada Hargeysa. Khaalid markuu yaraa muxuu xiisayn jiray? walaal markaan yaraa wallaahi horta waxaan iska xiisayn jiray new badanka waxaan iska ahaa asxaabta ama markaan dhalinyarta wada ciyaarayno badanka cid dadka aad uma dhexgeli jirin qof dhexgal yar baan ahaa oo waxa weeyaan aan dad badan aan ku xidhnayno markaa asxaabtu waxay gu oran jireen kuwaan isku kooxda nahay waa new maxaad iska koobkoobaysaayo aad dadka usoo dhexgeli lahaday aduu markii dambe markay iga yaabeen waxay ii bixiyeen keligii noole way keligii noole oo macnaheedu yahay keligii noole aduu macna ahaan waxa geed baa la yidhaahdaa geed ayaa la yidhaahdaa keligii noole laakiin sidii qofka aduu ereygan Soomaali ahaan waxa loo turjumayaa qof dee isagu keligii nool oo aan dee cid ku tiirsanayn ay ka wadeen maadaama anigu qof aan cid la socon asxaabna aanad lahayn aan qof social aanan ahayn oo aad u furfuran oo dad badan ku xidhan aanan ahayn oo waxa weeyaan badanka aan keligii iska socon jiray say yidhaahdeen aniga maxaa dadka usoo dhexgeli lahayd keligii noolaad way hees waxaa jirta idoo aabbahay la dhalatay aad iyo aad heestaasi bal qisadeeda nooga waran walaal hibaaqay waxa weeyaan heestan waa hees horta qisa dhaba waxaanay ku timi anigoo markaa magaalada Hargeysa ka tegay oo waxa weeyaan xagga Uganda yara tegay ayaamahan saa meesha u tegay nin waxaan isweydiiyey dee idadaaniyow waa ku soo korisay wax kalena dee maanta kuba maalmarin kartid dee aduu noqotay dee wax aad abaalkeeda ugu gudama helaysid waniyo maxaad sayni dee suugantaadan dee miyaad waxa weeyaan adigu ku abaalmarisid markaasaan heestan sameeyey ayaan muddo yar ka bacdi nin aan saaxiibno Saddam Iskayla ninka heesta qaadaya fanaana ayaa oo Muqdisho jooga ila soo hadlay wuxuu yiri niyo barnaamij baan galayaa hees baan u baahanahay markaa isagu dee heesi caadiga ahaayee nolosha jacaylka ayaa wuxuu doonayay aad iyo aad markaasaan ku yiri war walaal hees wixii ka duwan ayaan ku hayaa mawduuci ka duwan oo dee jacayl iyo ammaan iyo waxaas laga hadlaa laakiinse mid hees aan idadii u sameeyo walibana idadii kaliya tamaha idooyinka Soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin oo imka ay wada yeesheen ayaan ku soo diraya markaan heestii u diray adoo markay Ilaahay markiiba u la xameystay la wanaagsan buu saaray miisigii waa lagu tumay Abdi Askari baa la soo galiyay dee markii la yaatun baabay magaalada iska qabsatay oo dee ilaa hadda imka waxay mareysay challenge-geedu 22,000 qof oo dad caalami ah ay ku jiraan dad caadi ah ay ku jiraan ummadan oo iska wada dul duubtay oo markaa mid baa saamaxday inay heestaa la wada qaato waa heesta kaliya tee idada ay horta imka meesha ku jirta waxa caadiga ah waxa midda kaliya ta lagu qaatay waxa weeyaan heesta markaan magaca idadii baan ku darin waayo waxaana ka sii fikiray haddaan magaca idadii ku daro inay local noqonayso markaasay international noqotay idooyinka Soomaaliyeed ay wada qaataan magac kumaan darin kan waxaan ku bilaaway waxa odhanaysaa anigoo dhallaanoo socod baranin oo aan raad qaadin oo korin adiga ay kafaalo qaato iga dhigay qof kaamila abaal hooyo ma ilaawi karayee balse adaa ii buuxiyo booskeedii galay midda quran ku faanee aabbahay la dhalatay ididay rumaaday waa ayaama dunida caafimaad igu noolow aakhirana jannada hano ereyo noocaasa ka mid ahaa laakiin erstu waa dheerta oo ku jirta waa hagaag Khaalid maalmaha adag maxaa farxad geliya maalmaha adag wallaahi dee maalmaha adag waxay farxad geliyeen markaan arko wax dee bulshada ummadda wax u taraya oo badankan anigu waxaan jecelahay dadka waxa weeyaan laga awooda badan yahay
dadka laga awooda badan yahay baan aan jecelahay badanka inaan u hadlo oo aan taageero maadaama dee markii horena cilmi ahaan aan social work bartay social worker baan ahayn moogta sabab baahida bulshada markaste ummadda tacadiyada iyo waxyaabahaasaan nacabahay iyo ummadda laga awooda weyn yahay iyo waxa inaan u hadlo ayaan jecelahay. ma jirtaa dhacdo noloshaada bedeshay khaalid ahaan oo sidee yacni cid ku dhacday oo adiga shakhsiyan ku bedeshay oo aniga toos ahaan haa kuu saamaysay aniga toos ahaan saameyn ay ugu yeelatay haa dee oo aad is odhan karto adeeg baad kasii qaadayba adeeg baad kasii qaaday ma xasuusto qisada aniga aan isleeyahay saameyn bay naftaad ku yeelatay ay nafteeda ku yeelatay laakiin saddex heesaan laftigooda heesaanaan sameeyey laftigoodu dee saameyn bay ugu yeeshaan imika tan eedada oo kaleban ayaa aniga saameyn aaday ugu yeelatay markii dee social media ay dad badan kasoo fal celiyeen ay qaarba wax soo qoreen ayaa macaa waxaan ogaaday in dee eedada ay dadka dee qaar fikirro khaldan ay qaar ka aaminsanaayeen laakiinse markii dambe ay arkeen in hees caadi loo tiriyey dad badan baaba soo dhaweeyey oo dee waxa weeyaan dariiqii kasoo noqday ma garaad marka aniga laftigeygii dee saameyn badan ayaabay nagu yeelatayoo dee qaar badan baa komanada waxay igu soo qorayeen oo niyo kaalay dee eedadoodu samaysaye si habaryartahay makana lagaaga baxay markaa iyagoodii baa habaryarkii eedadii ayay isbarbar dhigeen oo waxa weeyaan tartansiiyeen markaana waan ka yara xanaaqo waxaan ku uri waa niyo labaduba waa waalidkana lama tartansiiyo ma garaad dee taa eedadii baan u sameeyey soo maa dee habaryarna waan leeyahay habaryartayna waan u samaynaya waan soo wadaaya degdegina ha hees habaryar oo wanaagsanna waan u samaynaya hagaag ma jirtaa hibo aad is leedahay way kugu jirtaa weli maad soo bandhigin waxa weeyaan ma hibooyinkan tirinta mise waxa weeyaan waytan tirinta laftirkeeda in kuu qarsoon baa jirta ma la odhan karaa khaalid ahaan walaal haayo dee inta qarsoon horta markasta waxa weeyaan markaste wixii cusub ayaa dee ayaa kolba aad waxa weeyaan fikir cusub markuu kugu yimaado ayuunbaad wax tirintani horta ugu muhiimsan waxa weeyaan muhiimaddu dadku si kale u arkaan laakiin si wax tirintu waxa weeyaan horta inaad sawir ka hesho haddana maanta sawirba ka haysanba habaaq nooca oo egtahay iyo qofka xogtiisa horta waa inaad waxaa horta inaad sawir hesho ayaa macquula markaad sawirka hesho markiiba waad curin kartaa si fiican baad u curinaysaa inaad wax cusub aad soo saarto marka markasta waxay ku xidhan tahay un waxa weeyaan waxaa xogta aad hayso ma jirtaa cid hibooyinkaaga kugu dhiirigelisa dhalinyarta curinta aad maansooyinka samaynayso cid adiga shaksi ahaan kugu dhiirigelisa ama dhalinyar ama qof friends gooniya oo adiga niyo walaal haa way jirtaa dee waxoogaa horta dad dee asxaabo badan oo dee dhiirigelinaya way jiraan laakiinse dadkaan gaarkaa dee waxa weeyaan aan gaarka isku siinahay dee saaxiibka gaarkaa isku siina isku si dhownahay niyo waxa weeyaan nin la yidhaahdo doctor carafaad maxamed jaamac ayaa jira oo niyo waa nin doctora oo doctor carafaad la yidhaahdo ninkaasi niyo waa ninka keliyaata abaalkan ugu hayo dee sugaanteydana uu jecel yahay markaan wax cusub aanna sameeyo waan la wadaagaa waxaan ku dhaha bal ka waran halkaa iyo halkaa ka warano dee waxa weeyaan wallaahi talooyin muhiima ayuu isiiyaa waxaan waan igu dhiirigeliya wuxuu ku dhahdaa waa nin saaxiib sugaan wanaagsan baad samaysay dee halkaa kasii wad markaa isagana aad baan uga mahad celinaya doctor carafaad ma jirtaa hees ama fariin inta aad bulshada usoo bandhigtay aad istiri haddii aad soo shaaciso ama aad fasaxdo saameyn badan bay geysan kartaa oo aad ka noqotay oo qaliga dib u celisay wallaahi walaal horta may weli taas may dhicin taas weli may dhicin dee inay soo socotana moojid laakiin dee kolley markasta dee waad eegaysaayo wixii dee adigana saameyn kugu yeelanaya dee bulshadana saameyn ku yeelanaya
deniyo kolley waxa weeyaan waad iska daynaysaa ama wax yaroo ka wanaagsan baad ku bedelaysaa. wey hees waxaa jirtaa bulshada qabsatay ood maalmo dhaweyd samaysay. aad iyo aad. heestaasi maxaa kugu dhiirigeliyey? heesa musad ood walaal horta wallaahi horta heestaasi waa dee in badan oo magaaladu haysata dee inaan muuqaalo wareysiyo horena ku duubay ay dhacday. niyo walaal waxaa jirtay heestaadu waxa keentay waxna waa wax ku talagala waxna waa wax degdega oo kadisa. markaa niyo maalmaha lagama kamid uman si kadisa u kulloonay ninka heesta fanaanka Daawud. markaa niyo walaal igu yiri niyo laba heesood hees daarood iyo hees madhibaanan sameeyey. heestii reer Sheekh Saxaaq baan doonayaa heesta ay qorniya sidaad igu codsaday kadib sidii baan ugu qoray. dee aduu waa tii markii dambe uu la xameeyey markii dambe waa lasoo baahiyey. dee sidii bay saameyn ku yeelatay aduu saameynteeda ay noocay doontaba ahaatee. marka isaga kugu dhiirigeliyey inaad heesta u qorto? haa isaga iga codsaday inaan qoro anaa u sameeyey. markaad qoraysay sidee dareemaysay maadaama ay ka duwantay heesaha kale? wallaahi walaal lugu horta waxaan dareemayay marka maaragtay ciddee horta heestee iyadoo marka caadi wax loo ammaanay marka qabiil hees loo sameynayo waa kala duwantay. marka maadaama oo niyo xaaladda de ninkaas niga codsaday ugu yiri niyo heestaa reer Sheekh Saxaaq baan u maahanahay. anna waxaan yidhi niyo de maadaama hees aan samaynayno waxaan horta aan heesta u kala sameynaynaa siday reer Sheekh Saxaaq caruurtiisu 8 bay dhalay 8 shay kala weynaayeen. marka 4 habar xabusheeda iyo 4 habar magaada ayaan isku raacinay. heestuna siday ugu kala jirto waxaad arkaysaa markuu tol jeclay Ayuub iyo Samboor iyo Cimraan aad xagga kala ku aragto xaggan kale maxaad ku arkaysaa Arab iyo Ayuub maxaa ku xiga waxaa ku xiga Garxajis oo ciidagaliya habaryoonisa la kala saaray. maxaa ku sii xiga Ciise Muuse habar awal waxa weeyaan habar awal Ciise Muuse iyo Sacad Muuse. marka waxa weeyaan markaste kii ugu sii yaraayo baa ugu dambeysiyay dee habar awalna guri dambayska ma hayd xaggana markaad eegta malaa Sacad iyo Ciise iyaguna saasay ay u kala gabeen. marka iyaga laftigooda sidaan dadka u kala habayna dadku may fahmin inuu tol jecel Ayuubkii yahay inuu tol jecel yahay curadkii reer Sheekh Saxaaq oo heesta ugu horeeyo. halkan kalena waxa weeyaan 4 habar magaada iyo 4 habar xabusheeda ay isku raacsan yihiin. saasan aynu sameyn. marka laga tago hal abuurnimadaada adigu shakhsiyan maxaad qabataa nolol maalmeedkaaga? wallaahi walaal waxa weeyaan nolol maalmeedkayga adigu waxaan warfaafintu maan joogaa idaacaddu maan ka shaqeeyaa. maxaad qaabilsantay? waxaan qaabilsanahay markii hore horta waxaan ahaa waaxda IT-ga waaxdan kalena waan la shaqeeyaa ee abwaanada waaxda dhaqankana waan la shaqeeyaa. waxaa jirta Khaalidow maaso dexda dumarka. dumarka haa maasadaasi siday ku timi bal nooga war walaal waxa weeyaan baaqay horta maasadan qisaa keentay. niyo horta anu waxaan ahay ninka kaliya dumarkana aad baan aan u dhiirigeliyayo aad baan u taageeraa ma garanaysaa hablaha. niyo waxaana igu keentay maalin maalmaha ka mid ah dee marka la idhaahdo qofka dee wuxuu markay kaa maqan yihiin dee waxa weeyaan ma ogaatid laakiinse marka waxa weeyaan waxaas ay meesha ka baxaan ayuunbaad ogaataa ma garata. markaa niyo maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan joogay cisbitaalkan adna ayaan ku hayay inaan maadeer nahay oo imaka geeriyooday ilaahay u naxariistay waqtigaan noolaa oo xanuunsanayay baan ku hayay. markaa waqtigii markaan ku hayay dee waad garanaysaa xaalad dhakhtar oo meeshii la joogo dee waxa weeyaan kolley meeshii dee yara nadaafad darra iyo iskaga iyo waxba daymanaya ma garatay. ay dumar ka maqan yihiin. ay dumar ka maqan yihiin. markaa aniga iyo dee anuguna ma hayay inankana ma xanuunsanayay
daniyo aniguna ma dee hawsha maan geli karahayn oo dee howlgaa ugu weyn baa dumarku hawshooda dee way adagtay moogta way markaa adigu xaaladeedoo dee nagu yaraa culustay ayuunbay inanka gabadhiisii baa timi way gabadhiisii baaba timi dee wallaahi wixii aan ka cabananay malaa 5 marir oo kaliyaata ay kaga soo jawaabtayba ay meeshiiba wada kaliin ka dhigtay markaasaan si niyada ayaan tixdan u sameeyey markaa masaan yidhi bal ka warranayo haddaanay dumarku joogi lahayn de nololba lama heleen baan yidhi markaa waxaan yidhi bal haddii maanta xaaladdaa aanay gabadhaasi idinka soo gaadhin aanay idinka furfurin dee adna waxaba maad habayseen waxna maad hagaajin karteen markaa waxaan yidhi waa dee waa hibe ilaahay uu dee idin siiyey dee waxaan idhi dee niyo mahadnaqo markaa waxaan idhi markiiba tixdaan bilaaway ilaan dumarku waa deeq daa'imuna siiyo waa damal har weynna waa daryeelka laluleed duruuftiya dhibaatada diihaalka waayahay deer nooga yihiin oo dabiibkeena weeyaan allow dumarka noo daa dugsi weeye diirana allow dumarka noo daa waa deeqda noloshee marwaad ku degaysiyo hooyo ku damqanaysiyo deeqa aad la dhalatiyo waa degan laguu dhalay dadaalkooda wacan baan duhuriyo habeenkaba aan ku tiirsanaayo dun xariira weeyaan intaasaan kusoo koobay markaa qiimahoodii baa sheegayay dumarku iyo dee halkay taagan yihiin oo dee iyaga la-aantood dee waxa weeyaan meelba lama gaadhayaba maca rabadaan taan la soomi karahayn waa rune waxba may kala socdeen waxba may kala socdeen dumar la-aantood waxaa jirta maanso aad u samaysay afis bal maansada nooga waran iyada maxaa kugu kalifay inaad afis u samayso walaal horta dee waxa weeyaan ilaahay baa yidhi deys cafiya ma garata adduunka waxa weeyaan arsiga ugu weynee adduunka la sameeyaana waa cafiska hagaag niyo markaa waxaan isiri dadkeenna siday u bateen dee waxaad arkaysaa niyo dadka munaafaqad bay ka noqotay ma xumaan kalaa waxaad arkaysaa qof ammaanaya haddana qofkii uu ammaanayay shalay tole oo maanta caayaya markaa waxaan soo dhalansaa aniga qofkan imaka dee waxa weeyaan muu kala socdaa hadda qofkii uu shalay kuwa ammaanayay oo ammaantiisa kula garab taagnaa uu kugu wareeriyey ayuu haddana maantana caydiisii marka adigu waxay ka hadlaysaa intaasunbay ka hadlaysaa waxay odhanaysaa qofaad shalay ammaantaad maanta ayar cayda eedu adiga maaheda macaayinkaaro kolba ku ilaha miya aadmiga mid ku rabo hooy inta aadmiga ha u qaadan toosho asaagaah dabagelin ruuxu wanaag afqaalo xasad uu ka maran yahay mar kastaba aduu noqo qofka hadal arrimintii kuwa ammaano weligii aamusnaanta adiguna aargoose uga dhigo hayntu waa ayaamo allah maamulaayee anfac gelin quraataa ha ku iibin sharaftaa dib ha eeginee dhaaf aroor hore wixii tegay ha ka aarsan weligaa ruux kuba inkirayo adiguba wanaajiyo cafisgu abaalceli bal ka waran adigu laftigaaga kii ku xumeeyey haddaad cafis aad isagiisii abaal aad ugu abaal celiso adiguba wanaajiyo cafis ugu abaal celi intaasay ay tixdaas ahayd waa hagaag khaalidow guntiga gunaanadkii baynu soo gaarnay aad iyo aad bulshada maxaad fariin u diraysaa dadka jecel hal abuurka walaal waxa weeyaan wallaahi dadka jecel hal abuurka waxaan leeyahay warniyo mar kaste waxaanad samaynaysaan ku dadaala wax diinta iyo dhaqankaba waafaqsan oo dee taya leh ku dadaala maadaama dee waqtigii dee gaariye iyo hadraawi iyo cabdiqays iyo dee riwaayadahay samaynayna inaan samayn karayn idinkoo imaka waxa weeyaan ku dadaala uun heesan naxwo leh oo dee dhaqankeenni iyo diinteenniba waafaqaya oo waxa weeyaan xikmad laga faa'iidi karo sida heesta moogtahay curyankaba caga looma waayina caynkaa wax loo yidhi kuwa cararaya ladan inay ku cibro qaataan markuu leeyahay waa dee hees xadiis caadi ah bay iska noqotay waxbaa laga dhex qaadanaya markaa waxaanaad samaynayso waa inuu xun laga dhex qaataa ama mahmaaha noqoto ama halxidhaalaha noqoto waa inay qofkii saameyn kaga tagtaa markaanuu dhalinyarada taasaan leeyahay ku dadaalow waad mahadsan tahay waxaa intaa inoogu soo gabagaboobay barnaamijkeeni gaarkii aynu la yeelanay abwaankeena khaalid baashi waare khaalidow soo dhawow mar labaad waan dhowahay aniga iyo bahda Abraar Media waxaan idinkaga tegaynaa inta barnaamijka xiga ku kulmi doono. Assalaamu calaykum.